وعن أو نكسن داوديال ملك السنة داون إنسان كوسو دواده ورئيس الجارة ومانته أي صورة شيء إن الله يشوه بروفيسور عبدي إسماعيل سمتر أو حكى جامعة ده كتالة قبل كعب من صوته وحنجعلها مركة وراه إن كوسو دويو تلفزيون كونفرنسال بروفيسور عبدي إسماعيل سمتر. تقوى ما تسنت هاي دتك كداوني أنا ومحتسين. وياه إن سيدات كور غبنا حالي تسارها قرن كصوماليا وحكون واقعي جدّيجه دور الشدة قبل هذا وقوي سيدو كله ورقة ما تكسر بحذي حفيزك قدوميها عقلك سريع عبد حاشي أرنتاس وقوقا دعي أديو سيدو عرقت أرنتاس ولا الوحوي هرت إلى هي خير هنا وافجيو وحنا ومسير أمداد أو ضدك أيهوجي لقت هلينا مركا إن سيدي كبدل لقو عيار وحرام ويان مركا رئيس الوزراء حاول كبدن أي وياله مربى هدي لدونية إن مدني جرت الصومالي ودن وقوي كونفور با قبل كستبا دولة قبلويد أي صومك عابية مركا هدينا كل بجرين دولة قبلويد وقوي لدها وح أهميته هي هان لهاي دتك وقصر سرية حق عقلها هي حق الدرجة لقو كلسون يهي إن لا تشهدوا إن يد اللو داعو إن يدو هرمود أرنتاك النقدان أما عبد حاش هالنقطة أما جامع يره هالنقطة أما أضياش كلام قال ذي جوجا هالنقطة أرنت إن سيدا لقو دمي أي هيد أو إياه كان سيدا لو معموسه هدي الله احترام أيو وذجرك وطن كورار مركز رئيس الوزراء وكوقف سنة هي ضدك كتم بيانا كيف جريمة وين أو قرن أي هالنتاكو كلام ولا اللي بان هذا لبضع أقل صوماليا كالصوت جدا قبل هذا وقوي سيدا لو سوحل جري مركي هوري لبا أرمود بهيد هرت وحن حرام وذويا 4.5 ما أفريا بد أي قبائل بصوح ولانية قرن مجرم ماشي مركا وحوي أول هانجرت وحوي قضية مقالة الجوجا صلادين تلقوا شيء oo qaar badan ay wanaagsan qaarna iska buuc yihiin ayaa iyaka talada goyn jiray marka waxa ahayd in reer waqooyiga iyaka inta la isugu yeero loo daayo ee maaha in dawlad madaxweynaheegu uu tartamayo inuu soo noqdo in iyada ra'iisul wasaaraheegu soo magacaawdo waxa weeyaan waraabihii oo la yiri orado waxaraha jir weeyaan walaal marka taasina waa xaraan weeyaan wiiq weyn iyo dhaawac weyn oo kii hore ka weyn ayay ku keenaysaa waqooyi iyo koonfur midnimada Soomaaliyeed walaal 4.5 waxaad sheegtay in ay tahay xaraan habkan aan daafi karin ee 40 sanaba mar la soo celinayo asalkeedii hore halkii ayuu ka yimid walaal deeqo waxa weeye dambigan raadkiisu uu fog yahay muddo 50 sanadood laga joogay doorashadii ugu dambeysay wadanka oo dhan laga qabtay min loo yacado ilaa raas Kamboni laga qabto 69kii waa la boobay boobkaasina wuxuu ku dhisnaa anaa talinayo xoog talinaya qabyaaladna way ku jirtay dambigaasi waa kii dhalay towradii waa kii dhalay towradii markii hay waxoogaa joogtayna waa tiri waa la aasay qabyaaladii waa la aasay haddana dib soo foodhacday marka boob iyo qabyaalad ayay dambiyadii ugu horeeyeen haayeen waxa ku soo biirtay markii dawladihii ka dambeeyay carta wixii ka dambeeyay gaar ahaantii Cabdullaahi Yuusuf wixii ka dambeeyay in dambiyada qabyaaladii iyo boobkii ay ku timiday xoog ciidan in la isticmaalo maanta oo la dhaho lacagna waanu isticmaalanaa wadamo kale laga soo qaatay qabyaaladna waanu isticmaalanaa waana kufsananaa cidii siyaasadda nagu soo nagaga hortimaada saddexdaa dambi waxay keeneen shar fara badan oo raadkiisu u fogaan doono haddaan maanta la xakin oon la qaban sharku keenay waxaa ka mid ah maanta waa la is horfadhiyaa Hirshabeelle oo Hirshabeelle inta dib loo burburiyay ayaa dib loo sameystay liis baa la soo qoray markaas la soo geliyay inay dadkii gobolka wada deganaan nabadda ku deganaa iska hor yimaadaan oo dagaal keenaan dambiyada saddexda ee ah qabyaaladii lacagtii iyo xoogii ayaa waxaa dhalay waa la is horfadhiyaa Hirshabeelle wax kaloo laga horfadhiyaa waxa weeyaan in maanta su'aashaadii ugu horeysay liis la soo saaray la leeyahay annaka haddaan dawladda nahay kuwan baa u talinaya reer waqooyiga doorashadooda Soomaad garan marka aayataankay keeri doontaa muxuu yahay waxani waxa weeyaan inay burburin doonto qarannimadii Soomaaliyeed runtii inay kala saari doonto midnimadii Soomaaliyeed marka villa Soomaaliya iyo nabad sugidda dadka ku shaqaysanaya hadday ka waantoobi waayaan oo ina dadkuna kici waayaan oo iska qaban waayaan dunuubtaasi waxay keeni doontaa wixii hore ayaa noqon doona ay qarso waxa laga yaabaaba in dagaal sokeeyo kale lagu noqdo walaal hal mar haddii aan dib ugu noqono wax la isku hayo waa xildhibaanada dirta waqooyi ee Soomaaliya
qabiilo kala duwan ayaa dega halkaas masku gowracan yihiin sida loo qaybinayo waxa weeye qolo kastaba waxa loo qoondeeyay intaasoo kursi guriga sare intaasay ku leeyihiin guriga hoosena intaasay ku leeyihiin waxa ku tusaysaa inuunan qaran jirin markaasi waa qolaa wax leh qaran ma laha waxba ninkaasi qolu mathilaa qaran ma mathilo soomaad garan oo dee waxaan tilmaam kaa siinayaa haddaad maanta adigoo deeq oo farsamadaa leh xamar tagtid oo doontid inaad shaqo raadsatid shaqada laguma qadarinayo muxuu soo qabtay farsamadiisu siday tahay dadnimadiisu siday tahay akhlaaqdiisu siday tahay waa inaad abbaan raadsatid adigoo qof Soomaaliya oo yaa halkan kuu jooga adiga ha tidhaahdid ee aan loo tartami karin marka waxaan qabaa waxa weeyaan qolada waqooyi dogtaana waxba ma wada laha runtii kuwa koonfur degaana waxba ma wada laha waa la kala wada tagay oo 4.5 ayaa lagu xukumayaa marka waxaan isleeyahay waxa weeye qolooyinka reer waqooyiga arinta muhiimka waxa weeye wadankan laba maxmiyadood ayaa keenay maxmiyadda ingiriiska ee waqooyiga iyo maxmiyadda talyaaniga koonfurta keenay waxna waa lagu heshiiyay wixii baa laga baxay markaasi marka waxa la yiri reer hebel intaas aad leedihiin reer hebel intaas marka haddii tahay Soomaali hay doorteen inay ku dhintaan oo ku dhaqmaan dee qof kastaba wixiisa loo daayo weeyaan waxaa jira mas'uuliyiin xilal sarsare ka soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya markii ay dib ugu noqdaan Somaliland waxay sheegaan inay midnimada ka noqdeen marka su'aasha marka waxay tahay xamar ma loo soo shaqo tagaa mise waxaa jira dad ay midnimadu daacad ka tahay marka ugu horeysa waxa weeyaan haddaan ku siiyo tilmaam dad xamar aan ka tagin ilaa burburkii ayaa jira oo Soomaaliya oo reer waqooyi oo Cabdi Xaashi kow ka yahay Cabdi Xaashi haddaad weydiisid dadka xamar degan waxa ka oran nin daacad oo dawladdan iyo baarlamaanka ku jira Cabdi waa kow ka Cabdina waa taas waa la dhageysan laayay halku ra'iisul wasaaruhu ka soo qorayo in Cabdi haddii cid ay qorayso inuu Cabdi qoray xeed oo la yiraahdo adiga waqooyi ugu sareeya dadka la soo doortay adigu ka tali in la dhaho laakiin in isaga waraaq loo keeno la yiraahdo waad ku tolan tahay tani xaraanta ku tusaysa marka su'aasha hadaan soo noqdo ahayd miya loo soo shaqo tagaa xamar waa loo soo wada shaqo tagaa reer waqooyi qolo ma soo shaqo tagaa koonfurtu way u soo shaqo tagtaa waqooyi way u soo shaqo tagaan mid walbana markuu halka wax ka waayo dantiisii gaarkii ayuu doontaa marka hadaan ku tilmaamo ma afkubaadiska la leeyahay midnimaan u taaganahay mise dhabta midnimada afkubaadis marka tagtid kuwii dawladihii jiray tii shariifkaad ka soo qaadi tii ka horeysaad ka soo qaadi tii kala ka soo qaadi reer waqooyi hoos ayaa la iskaga wada dhigayaa waxa loo yeeranayaa dad la carbistay oo kale ayaa loogu yeeranayaa kii hadal karaya ee qiimalana waa la iska xogaya sida Cabdi Xaashi oo kale marka koonfurta siyaasiyiintooduna way u soo shaqo tagaan xamar kuwa xamar ku dhashay siyaasiyiinta xamar bay u soo shaqo tagaan qaran uma soo shaqeeyaan meesha waa laga wada shaqaysanaya marka reer waqooyiga waxba yaan fargaara lagu taagin way ugu dambeyntii marka arintan hadda murugsan ra'iisul wasaaraha wax magacaabaya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka amba aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya uu sheegayo in waxaan aysan ahayn xaq marka baarlamaanka Soomaaliya dadka siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya maxaa la quman oo la gudboon waxa weeye meeshan waxa ka socda waxa weeyaan kufsi siyaasadeed qarankii Soomaaliyeed iyo gobolkii waqooyi waa la kufsanaya marka Soomaalida koonfur degan horta waa in la kala saara ma siyaasiyiinta mise dadweynaha siyaasiyiintu in badan way jeclaan lahaayeen inay wax hagaagaan laakiinse kuwa ugu cadcad ugu tunka weyn leh waxa weeyaan iyo ku dan kama laha runtii marka waa la kufsanayaa dantii waqooyi xamar ayaa lagu kufsanayaa maxaa la quman markaa dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed koonfur degan gaar ahaan magaalada Muqdisho degan culimadii maxaa la quman mushirkii maxaa la quman ururadii bulshada maxaa la quman dhalinyartii maxaa la quman haweenkii maxaa la quman dhammaantood waxa la quman haddii inuun hay qabaan in rajo Soomaaliyeed dib u soo noqoto waxa la quman waxaan inay ka hor yimaadaan oo yiraahdaan waxaan reer waqooyina ma qabato Soomaalinimana ma qabato islaamnimana ma qabato haddii se loo aamuso waxa weeyaan waxaas ayaanu ka raalinahay haddaanu reer koonfur nahay kamana hadlano markaa waqooyi waxa iman doonta dadka u doodaya inaan midnimada weligeed la jibin karin anaa ka mid ah waxa iman doonta in la oran karo war bal dib arrintan ha looga fikiro halkii wixii la moodiyay maahe milatarigii baa nagumaaday maantana waxa weeyaan waxa la nagu gumaadayaa lacag iyo xoog baa la nagu gumaadaya haddaan reer waqooyi nahay xaqii Soomaaliyeed oo dhanna waa la beylihiyay kii koonfureed kii Puntland kii Kismaayo meel walba waa la beylihiyay
markaa dadka koonfurta degan ee Soomaalida ee culimada ah ee baayac mushtarka ee dhalinyarta ee ururada bulshada ah waxa la quman bay la tahay oo la qabaa inay arrintan ka hor yimaadaan hay yiraahdaan waxaan midnimada iyo islaamnimada ma qaban karto dib ha looga joogsado halkee ayay marka iska waafaqi kartaa marka midnimadii Soomaaliga ee markii hore la doonayay intii markii hore midnimada rabtay hadii sidan loo sii fogeynayo bal kuwii markii hore sii fogaa oo diidanaa midnimada Soomaaliya marka maxay Soomaaliya ka aamin karaan waxa weeye midnimadu waxa weeye Soomaali ma kala maarmayso waxa weeye ama Kenya ku noolow ama Djibouti ku noolow ama Ethiopia ku noolow ama waqooyi ama koonfur ku noolow Soomaali waa mid waay waa dad walaal ah weeyaan af wada leh diin wada leh dhaqan wada leh wax badan wada leh meeshii bogsatana ta kale ayay bogsiis caafimaadka ku talaalaysa marka waxaan qabaa waxa weeyaan koonfurta siyaasiyiinteeda marti looguma aha midnimada Soomaaliyeed lagama sugayo iyaka martina looguma aha midnimadu way imanaysaa xaq bay ku imanaysaa marka waxa weeyaan qolooyinka waxaad ka soo qaada walaalkay koonfurta qudheedu way kala daadatay haddaad maanta Kismaayo tagtid ama Puntland tagtid ama meel kale tagtid waxa lagu arkayaa qof ajnabi ah lagu arkayaa marka koonfur midaysan oo is haysato walaaliyay oo siyaasiyiin ma jiro dadku way wanaagsan yihiin marka waxa weeyaan marti loogama ahee waxa la iska celinayaa waxana la iska celinayaa si xaq islaamnimo iyo Soomaalinimo dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga ee midnimada aaminsan iyo koonfurta midnimada aaminsan intay soo heshadaan garbaduub kuwan doonaya inay kufsadaan siyaasadda Soomaaliyeed ha iskaga qabtaan waliya wata daawadayaal aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Universal wareysigan waxa qaaday anigoo ah Deeq Darajo intii aan dib dambe ugu kulmeyno waxa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo